dhalinyarada waxgaradka iyo aqoonyahanka degmada Garadag ee gobolka Sanaago fiidnimadii caawa kulan warbaahineed ku qabtay gudaha degmadaasi ayaa si weyn u taageeray jabhadda xaqdoon ee fadhigeedu yahay Buuraleyda Siraadley ee gobolkaasi Sanaago waxayna sidoo kale ka hadleen dhalinyartan iyo aqoonyahankani culaad dhawaan laba arda ku dhex martay deegaanka fadhigaab ee gobolkaasi Sanaago taasi oo ay sheegeen in mid ka mid ah labadii arda ee diritu dhex martay ay gaadoon gelisay xukuumadda Soomaaliland wasiday hadalka u dhigeen iyagoo xukuumadana ugu baaqay in arrimahaas dhex ka ahaato waxaana ka mid ah hadaladoodii waxaanu ku raacsanahay nimanka waa dawladdu dhabarkay cagta ka saartay waa cadaadisay waanu diyaar garownay inaanu raacno oo aanu ku taageero eriyadka leeriyaday waxaanu leenahay jabhadda diyaar baanu nahay waana ku raacsanahay dawladdu haddaanay waxaa bedelin oo aanay waxaa xal ka bedelin inaanu nimankaa annagu diyaar u nahay oo kula soconno jabhadda ay urureen inaanu diyaar kula nahay haddaanu nahay reer Garadag xaq darada siyaad baraanu ka yeeli weynay siyaad bare Soomaaliland ka yeeli mayno Soomaaliland waaba macdala waaba Soomaaliland ina bixiino marka ka weeraro beesha ka weeraro Hargeysa marka ka weeraro bari ka yeeli mayno in ay ku foorartaa iyaga Soomaaliduna waxay tiraahdaa nimay gurigiisu raadiyayo ni gurigiisu dhagayaa shiidi jabhadan waa mid dal haysata dadna haysata dalbay haysata mid soo kooban maaha mid la soo qaban karayna maaha beesha biciida weyne waanu taageersanahay wixii ay shar iyo khayr la yimaadaba waanu ku taageersanahay waxaanu kala xukuumadda u sheegaynaa xukuumaddu markii hore Soomaaliland waxay ku kobocday beelo saami qaybsi ah waxay ahayd beelaha ay wax ku qaybsanaysay qolo kastaaba waajibaadkeeda ayay ka qaadanaysay nin waliba dal iyo dad wuxuu yahay buuna dee ku ambaqaadaya ama wax ku ahaa bad iyo berri iyo buur midna tan Maxamed Siyaad Barri aad cadda toona uguma tegin waxna tegi karo Soomaaliland ugu tegi kar mayso waxaanu leenahay nabadda hal la ilaaliyo haddii la ilaalin waayo saddexdaa xusbi qaran labadaa janan maxkamadda sare afartii ilma ardaaga magaalo ku wada cuni jiray waxna haysan maayaan afartii ilma xabuusheedna gaar ka ahaan mayso ka qatanaan mayso marka hore nabadda inaga ayaa wax ku qabnay ayadoo waxbayna kuma qabto nabaddu ayadoo waxbayna kuma qabto haday fasahaado laakiin inaga wax ku qabno dan ku qabna dawladda waxaan u sheegayaa waxaad moodaa inay si wuxuuda fahmin sida nabaddu waxay dawlad ku tahay shacabka iyo dadka hagaajintiisa iyo wanaajintiisa iyo dadku ta laakiin hadday shacabka la colaysanto dawlad jiraysa ma jirayso dawlad jiraysa waxaan leenahay jabhadda qolada jabhadda waan ku garab taaganahay haddaanu nahay beesha biciido weyne si weyn baan ugu garab taaganahay waayo dee waxa noo muuqata dee dawladdiiba inay reer noqotay baa noo muuqata waxaanu ku taageersanahay jabhadda ayaanu taageersanahay sababtoo ah kuwii dad noogu xigay oo Axmed Faarax waa maalin walba dhabarka lagaga sii taagan yahay oo la sii yaryanaya iyaga iyo sandaladoodiiba huluul iyo laastomaare annagu waxaa ma yeelino mana dul qaadanayno sababta awgeed hudheelka Hargeysana ka noqdo haddii Muuse Bixi haddii uu nabad doonayo jabhadda waxaan leenahay horta idigu waxa weeyaan shaqadiina gudatay ragguna uu iska daba imanayaa waxaan leenahay laga bilaabo caawa annana halkayga taagnay halka joogta maanu ku imanana